بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا وناكسن داوديال meel kasta oo aad joogtaan halkani waa Universal TV istuudiyahan ku leenahay magaalada Hargeysa iyo waliba barnaamijkeena milicsiga siyaasiga toddobaadkan barnaamijka waxa igu martiya gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga macaaridka ah ee wadani Cabdirashiid Cabdi Jaamac ugu horreyn gudoomiye ku soo dhawo Universal TV waa dhaw walaal adiga iyo Universal TV waan idin mahad celinaya sida wanaagsan ee istuudiyahan igu soo dhaweyseen waana ku faraxsanahay inaan barnaamijkan milicsiga siyaasiga maanta marti kugu ahaado gudoomiye ugu horreyn xaaladda guud ee Soomaaliland hada nooga war walaalkii Cabdirashiid horta dalka maanta xaaladiisa weyn ognahay waxaan isaga jirnaa xaalad abaareed waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryaynaa inuu roobkii wadamada jaarka dib waa la sheegay inuu ka bilowday inuu Ilaahay noo soo dedejiyo si dadku ay ga kacaan abaartuna waxa u badan tahay gobolada bariga gobolada galbeedka waxoogaa oo ka qabuuyin dhinaca markaad eegto biyaha iyo kaydkii biyaha haysteen iyo waxyaabihii ay u soo go'ay zaracii sanadkii hore u soo go'ay oo kaydka ugu jira marka Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu horta abaarta inaga soo jibiyo talabaad walaal xaaladda guud ee dalka dib ognahay oo waxa lagu jira xaalad doorasho oo ognahay oo bariyahan dambe khilaaf baa jiray xagga doorashooyinka xisbiyada macaaridka iyo xukuumadda ka dhaxeeyay waxaan ugu aaminsanahay xisbiga wadani ahaan iyo xisbi macaarid ahaan si guudba in ay taagan tahay xilligii waxa weeye doorashadii madaxtooyada loo diyaar garoob lahaa komishanka qarankana jadwalka bishii 11aad bay iyagu diyaarsadeen November jadwalkii doorashada madaxtooyada marka waxaan rajaynayaa insha Allah inay dhawaan soo saari doonaan maalintan waxay sameeyeen 10kii bisha waxay 20kii bishii hore waxay sameeyeen 20kii bishii hore waxay sameeyeen tijaabadii oo deegaano gaar ah laga sameeyeen marka waxaan rajaynayaa insha Allah inay hawluhu iska dhamaan doonaan aynu diyaar garoobno insha Allah ta'ala doorasho way gudoomiye waxa ta gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani xaaladda guud ee dhalinyarada Soomaaliland maxaad kala socotaan si guud xaaladda guud ee dhalinyarada xafiisyada gobolada aan ku leenahay marka riboodyada iyo warbixinada naga soo gaaray waxa sheegayaan horta in si guud dhalinyartii Soomaaliland ay xaaladoodu meeshii ugu liidatay intii Soomaaliland jirtay marayso haddaynu ka soo qaadano shaqalaanta waxay maraysaa shaqalaantii ugu baahsanayd dalka sababtu waxa weeye dad badan baa jaamacadaha ka soo baxay sanadihii hore dad ka badan ayaa ka soo baxay sanad walbana intaasoo dhalinyaro ay noo soo qalin jabisay waxaa jirta dhalinyaro fara badan oo tahriibkii laga soo celiyay oo ognahay berdhowtayn ay u xirantay Liibiya dad badan oo dhalinyaro dadkii ku dhintay dadkii kale markay soo noqdeen waxa la isugu soo wada noqday dalkii baa la isugu soo wada noqday shaqalaantii waxay gaadhay markaa meeshii ugu sareysay ee ayna abid gaadhin horteeda markaas xaaladda guud ee dhalinyartu waxay ku sugan tahay horta marka koobaad walaal abaarta jirta marka laga yimaado shaqalaantii oo baahsan waxa kale oo Cabdirashiid oo soo biirtay dhalinyartu berigi hore dad waxay iska hanjiraan haday shaqo helaana iska suga haddii shaqeeyana iska yimaan qaba imika waxa biirtay balwadihi oo ognahay maanta dalka meel walba oo banaan waxa ka soo galay qashinkii iyo balwadihii baa ka soo galay ciidanka waan uga mahad celinaynaa sida ay ugu jiraan heeganka ee mar walba ay u baaraan ay u qabtaan laakiin haddana lama maamuli karo waxay u baahan tahay siyaasad qaran oo weyn oo ka hortaga mukhadaraadka dhalinyartii maanta intii shaqalaanta baahsan ay haysay waxa u raacday mustaqbal xumo oo mukhadaraadka kuwiisii ugu liitay ayaa dalka soo galay hadday noqoto xashiishkii hadday noqoto khamrigii hadday noqoto balwado kale oo ay dhalinyartii fara bateen marka waxaynu u baahannahay si guud in dhalinyartii bal siyaasad guud laga yeesho laga hortago mukhadaraadka iyo mustaqbal xumada dalkan ku soo waajaan haddii maanta ay halka ka socotana waxaan anagu xisbiyaan aaminsanahay in dalkani mustaqbal aan noqon doono haddii maanta dhalinyarta wax laga qaban waayo waa gudoomiye madaxweynaha Soomaaliland wuxuu sameeyay markuu talada dalka yimiba barnaamijka shaqo qaran oo dhalinyarada aad u fara badan ay ka soo baxeen oo qaar ciidamada ku jiraan qaar mataqaana wasaaradaha la geeyay walow hadda imikaba sida aan warka ku hayno aan la shaqaalaysiin ba dadkii la iska qaadan jiray cid ka soo baxday shaqo qaran inay fursad helaan arintaasi bal hadda lafteedu miyaanay wax weyn ka qaban karin shaqalaanta berigii barnaamijka la bilaabay madaxweynuhu bilaabay mashruuc wanaagsan oo dadka u soo kordhay oo wanaagsan baa loo arkay ilaa imika waxoogaa wanaagsan yahay hadda laakiin daldalooyin baa ka soo baxay waxa kamid ah in dadkii la iska qaadanayo salahan qofkii sanad walba oo la qaataa intaas oo shaqaale la qaataa wasaaradihii lagu maasan gareeyo qofku wuxuu baahan yahay
inuu xoogiisa maalo inuu maskaxdiisa maalo qofkan jaamacad buu ka soo baxay aqoon baa ku jirta energy baa ku jira sidii loogu talagalay loogama faa'iidaysanayo qofkii waa la qorayaa shaqaal qaran baa taa la leeyahay gurigii buu iska fadhiyaa milyan baa loo qorayaa ama milyan iyo badha qofkaasi milyan barkaa dee haddii uu shaqayn lahaa dee reer buu samayn lahaa cid buu wax kusoo kordhin lahaa lacagta ma usii biiri lahayd laakiin marka milyan badh lagu siiyo fadhiga waxaad ka filaysaa qofkii wuxuu noqday dadkii fikiraya mooyaane intii kale inay balwadana sheegano iyo wax ka daran ma galaan laakiin gudoomiye dadkaasi fadhiya miyaanay shaqaynin oo shaqo aan loo qaadan sidee qof aan goob ku shaqaynin loo qorayo tusaale walaal marka iminka qofka shaqada qaran la qaato qofku markuu shaqo ka soo baxo shaqo qaran ka soo baxo waxa weeye uu tababarkii soo dhamaysto wixii loogu talagalay dee dawladdu ka rabtay iyo requirementskii qofkan inuu shaqo qaran ka soo baxay la caddeeyo waa la soo daayaa qof walba wuxuu ku noqdaa gurigii hooyadii iyo aabihii iyo gurigoogii buu ku noqonayaa ilaa ay dawladdu u yeedhayso la asaan garaynayo oo meel lagu qorayo dee gurigii aabihii iyo hooyadii buu fadhiyaa iyo gurigoogii intaa waxaa la rabay in dawladdu ay marka qofka la qaataba automatic lagu asaan gareeyo waxa uu amba bartay amba uu ku fiican yahay in la geeyo tusaale ahaan dad badan baa ku fiican oo dee marka tababarka la arko dad baa ciidan ku fiican qofka markiiba in ciidan la geeyo wey laakiin wuu soo noqonayaa gurigii buu ku noqonayaa wuxuu muddo uu sugayaa inta la asaan garaynayo waxaa laga yaabaa inay soo gaadhaan kuwii sanadkii hore shaqo qaran la qoray iyo kuwii maanta la qoray ta kale walaal in haddii xataa wasaaradaha iminka wasaarad baa wax lagu oranayaa intaasoo qof baa u shaqeeya wasaarad baa wax lagu leeyahay 1500 baa u shaqeysa wasaarad hargeysa ku taala oo aynu ognahay inta blog ay ku fadhidaaba 30 iyo 30 dhinac walba 30 mitir noqote yaa waxa lagu oranayaa 1500 qof oo shaqeeya 1500 qof waxay qabtaan yaa muhiim ah waxa loo baahan yahay qofka dhalinyarta in energy ku jira laga faa'iideeyo waxa lagu oranayaa qofkan waa shaqo suge bayrool weeyaan shaqada dawladda lagu daray 1500 qaata guriga abiyo hooyadii iska fadhiya xoolaha ummadda iyo cashuurta dadka laga soo ururiyay in qof guri joogay in lagu laalisho maaha waxaa loo baahan yahay qofkan inuu wax soo saaro gudoomiye arrintaasi imika oo kala leedahay 1500 baa wasaaraddii ka shaqeeya haddana barkood guryaha iyo lacagaha iskaga qaataan ma waxaad samayseen dabagal baad samayseen ma research baad samayseen waxaa sideed ku ogaateen horta anigu de xafiisyaan ku leenahay xisbi ahaanba gobolada garabka dhalinyarada xafiisyaan ku leenahay si guudna dee caw baa lagu wada fadhiya horta dalkii waan wada joognaa xaaladda guud waa la wada garanaya dadkan asxaabta inay wada fadhinaa shaahaynaba ayaa ku jira dadka nin walba lacagtaas soo dhacda sidii loogu talagalay ee dalkan inuu shaqeeyo ee productive u ahaado waxyaabaha challenge-ga hortaagana waxaa ka mid ah markaan daba galnay dad ilaa 60kii soo shaqeynaya taagan wasaaradda jooga oo retirement qofka inaga beri dhowtay hay'adda shaqaaluhu beri waxay samaysay sharciga howlgabka iyo samaysay ilaa imika ma howlgelin sharcigaas hadduu howlgeli lahaa uu shaqeyn lahaa rag badan oo dhalinyara oo aqoon leh oo aqoontoodii oo fresha oo energy haya yaa laga faa'iideysan lahaa marka wasaaradda dhalinyartan waxa ugu wacan inay gurihii joogaan wasaaradihiiba qofkii markay bayrool ku qoran meeshii la geyn lahaaba qof horaa sii jooga marka waxay ku qasbaysaa dantu in dee qofkii maadaama uu shaqo qaran ka soo baxo sharci yahay inuu gurigiis ka fadhiyo haddii loo baahdo in loo yeedho marka caqabadaha jira waxa weeye walaal howlgabkiina ma shaqeeyo qof baa ilaa 60kii ilaa maalintii Soomaaliland la aasaasay laakiin gudoomiye tirada shaqo qaran ka soo baxday ee aad sheegaysan guryaha fadhiyaan waxa ka badan tirada shaqo gashay ee wasaaradaha iyo laamaha kala duwan ee dawladda ka shaqeysa soo taasi sax ma waa si wanaagsan cabdishiid aniga ku sheegayo shaqo qaran wali daliil weyn oo ay leedahay ma jirto aan ka ahayn in dadkii sanad walba la iska qaadanayo tiradii la qaatayna aan sideedii loogu talagalay aan u shaqeynin oo de energy qofku waxa loo baahan yahay walaal 80% in laga faa'iideysto dhalinyarada 20 kale dhib ma leh laakiin de maxaad u arkaysaa qofkan xataa la shaqaaleysiiyay cabdishiidow ee lacagta lagu qaatay mushaharka qaatay waa shaqo abuur waa sax laakiin maxaa loo baahan yahay qofkan inuu waxaysana productive hadade wax soo saaro looma baahna in qofkan waa shaqaale lama rabo waxay rida xashuur baa ku baxaysa waxa ku baxaysa xoolihii ummadda ku baxaysa miisaaniyad baa ku socota waxa loo baahan qofkan inuu wax soo saaro waa in wasaaradaha la balaadhiyo salaam wasaaradaha gobolada kale waa in dadka loo diro wasaaradihii gobolada waa in la dhiso salaam wasaaradda xanaanada xoolaha kale waa in gobolada si fiican uga shaqeeyso kalluumaysiga waa in si fiican uga shaqeeyaan wasaaradda beeraha waa in si fiican uga shaqeyso wasaaradda wax soo saaraya waa in shaqaalaha lagu badiyo oo dad badan oo xoolihii soo talaalaya xoolihii cashuuraya kalluumaysigii ka shaqeynaya dadka tababaraya dadkii marka maxaa sameeyay wasaaraddii miisaaniyad badan baa resource bay noqonaysaa source ay dawladdu ka hesho
miisaaniyaddana dee wax ka tartay noqonaysaa dalkana hogaamisa. wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa xukuumadda u qaabilsan dhinaca dhalinyarada iyo weliba aan idhaahdo ururka muxuu ahaa dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliya labadaasi shaqooyinka ay dhalinyarada u hayaan gudoomiye bal hadda iyaga laftoodu miyaanay ka qayb qaadan shaqo la'aanta inay dhalinyarada ka yareeyaan horta Soomaaliya NGO way gaaro dee dhalinyarada Soomaaliland loogu talagalay iyadoo gaar mas-uuliyadda koowaad horta waxay saaran tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha mar walba oon xisbiga aan ka hadlayno howlaha dhalinyarta wasaaradda dhalinyartu waa factorka ugu weyn ee caqabadda ku ah in dalkan dhalinyarta hogaamiso wasaaradda dhalinyarta walaal saan sheegay waa wasaaradda loogu tala ku magacaaban dhalinyarta waa inay ka shaqeyso siyaasadda dhalinyarta dowladda waxay ku ololeysay inay siyaasadda dhalinyarta markay timaado dalka inay keeni doonto siyaasaddii dhalinyarta ilaa imika waa la sameeyaa la yidhi laakiin ilaa imika lama horgeyn golaha wasiirada oo dee ah meesha xeerarka dowladdu ka soo baxaan waxaa jira walaal sanduuq horumarka dhalinyarta idhaa oo Somaliland Youth Development Fund loolan jiray oo dowladdu ay samaysay oo loogu talagalay in lagaga shaqeeyo shaqo la'aanta ganacsi loogu abuuro dhalinyarta ilaa imika 4 sano ee madaxweynuhu joogo iyo dowladdu 5 sano imika baarka dee sii galaysa lacag ayaa lagu shubaa sidoo madaxweyne ku-xigeenku sanadkii imika sheegana maalin uu sheegay waxa uu sheegay in 4 milyan ugu jiraan dhalinyarta oo dollar 4 milyan dollar madaxweyne ku-xigeenku sheegay sababta loo hayaa maxay tahay waxa la sheegay in madaxweynuhu 2020 uu sameeyay guddi maamusha sanduuqa ilaa iyo hadda 2 sano kadib hal kulan oo ay yeesheen ma jiro oo minutes ka soo baxo official ah ma jiro sanduuqa dhalinyarta lacagta lagu ururinayaa sababtii loo sameeyay oo madaxweynuhu markuu sameeyay uu ku sheegay in dhalinyarta lagu horumarinayo ganacsi lagu abuurayo shaqo abuur lagu sameynayo wax alla qof ka faa'iideys hal qof oo ka faa'iideysan ama gobolada ha joogo ama Hargeysa ha joogo ka faa'iideysan ma jiro marka walaal waxay ku tusaysaa wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu oo waliba gudoomiye looga dhigay hogaanka sanduuqaas wuxuu ahaa wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha gudoomiye looga dhigay wasiirka looga dhigay wasiir kolba markaa jooga laakiin waxaan arkaynaa walaal wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu inaanay sidii loogu talagalay aanay u fulin gudoomiyihii hore Soonyana isagaaba sheegay yiri wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaruhu sanduuqa horumarka dhalinyarta Soomaaliland wuxuu ka dhaqaaqi lahaa waa wasaaradda marka caqabada koowaad haysta wasaaradda waxa weeye inaanay u bisleen horumarka dhalinyarta gudoomiyaha kala madax banaaneen wasaaradda iyo ururka dhalinyarada ururka dalada dhalinyarada Soomaaliya way ka madax banaantay laakiin waxa isku xidhay sanduuqa dhalinyarta Soomaaliland markii la sameeyay gudoomiyaha waxa looga dhigay wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha xubin la waxa ka ahaa markii u horeysay wasaaradda Soomaaliya ka ahayd xubin ka ahayd maadaama dhalinyarta qaabilsan tahay guddi waxa jirta 2020 madaxweynuhu sameeyay oo wasaaradda maalgashiga iyo wasaaradda maaliyadda ay ku jireen wasaaradda dhalinyarta ciyaaraha waxa xoghayn ka ahaa Soomaaliya iyo xoghayn ka ahayd oo ahayd xogayaha isku xidhaya waxa kale oo ku jirtay nagaad ba ku jirtay laba qof oo international partners ku ay soo magacaabiyeen yaa jirtay laba qof oo laga keenayay ganacsatada hay'adaha internationalka Cabdirashiidow labadii qof ee loo doonayay inay soo magacaabaan ilaa imika may soo magacaabaan sababtu waxa weeye waxay ogyihiin sanduuqan in midmadow ku jiro fara badan wasaaradda dhalinyarta ciyaaraha oo leadkii ah iyo Soonyana waxay ku ahaayeen line minister way isku ahaayeen oo way isla shaqeynayeen marka sababtu gudoomiyihii hore uu sheegay in wasaaradda dhalinyarta ciyaaraha ka dhaqaaqi wada saas horta ahayd marka xiriir baa ka wada dhaxay sanduuqan bay wada maamulaan marka anigu waxaan aaminsan waa sanduuqan hadii la rabo in wax loogu qabto ummadda 4 sanad yaa lacagta lagu ururinayo xagee la geenayaa gudoomiyaha awooduna marka sanduuqaasi inuu dhaqaajiyo oo dhalinyarada wax lagu qabto wasaaradda ciyaaraha madalada Soomaaliya yaa marka koowaad waxa uu la sameeyay sanduuqan madaxweynaha waxa laga rabaa sababta uu sameeyay waxay ahayd in dhalinyarta wax lagu qabto ma ahayn in lacag lagu ururiyo sanad walbana miisaaniyadu way ka dhex muuqataa 200,000 oo dollar baa sanad walba lagu shubaa madaxweynuhu afkiisu ka sheegay inuu sanadkii u horeeyay markii isagoo jooga 3 bilood iyo 3 cisho ayuu sheegay in 200,000 oo dollar lagu shubay wasiirka maaliyadda noo sheegay madaxweyne ku-xigeenku bishii dhaweetay dhamaatay wuxuu sheegay in 4 milyan dhalinyarta loogu hayo sanduuqa marka cidda madax meel ka sareysa ma jirto madaxweynaha waxa laga rabaa haddii ay ciddii loo magacaabay ku fashilantay in waxa weeye la bedelo si wanaagsan amba dee Soomaaliya loo dhiibo amba ciddii kale maamulaysa loo dhiibo laakiin inaan sidan lagu sii haysan waxaan aaminsanaa war haddii waxaan imika ciddii wixii ka dambeeya haddii dawladdu rabto inay wax u qabatana waxaan u aragnaa inay campaign ku galayso
waxa weeye 4 sano dhalinyarta soo silcaysay oo shaqo la'aan jirtay oo tahriibkiisa u socday maxaa wax lagu qaban waayay sabab waxa weeye waxa la isweydiiyay walaal gudoomiye dhalinyarada tahriibka ay ka soo celisay xukuumaddu shalay ugu dambeysay hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha waxa ay shaqaalaysay ama shaqo abuur u samaysay dhalinyarada ay soo celiso min $2,000 sida iyaguba sheegeen oo ay shaqo abuur ugu sameynayaan taa lafteedu miydaan ka warhay waa ka warhaynaa laakiin maaha lacagtii sanduuqa ku jirtay waay lacagtan waxaa iska kaashaday hay-adda IOM oo u qaabilsan international dadka baxbaxa iyo socdaalka adduunyada u qaabilsan waay yaa ka mid ahayd marka hay-addaasaa lacagtana dee bixisay ma garatay waxay dowladdu bixinaysay iyo waxay facilitation mooyaane wayna fadhiyeen markii ay dad dib u daawato ninkii IOM u qaabilsanaa iyo guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha u fadhiyeen marka lacagtii sanduuqa walaal maaha waa lacag hay-adi bixisay lacagtan dee dhalinyarta lagu waxa weeye lagu ta kale haddii walaal dhalinyarta ay ka go-antay dowladdu in wax u qabatoba cabdirashiidow 4 sanay soo horfadhid oo lacagta ururinaysa maxay wax uga qan weyday lacagtan yaa loo hayaa ma campaign baa lagu galayaa waa marka la garan waayo wax lagu qabtaa cid gaar ah qaadanaysa ilaa iminkana annaga waxa shaki nagaga jira in cid gaar ah jeefkayga ku dhici doonto waay gudoomiye gudoomiyaha garabka dhalinyarada wadani wuxuu ku iman jiray doorasho oo dhalinyarada gobolada kala duwan intay isku yimaadaan shirweyne loo qaban jiray kaasaa lagu dooran jiray adiga iyo gudoomiyihii kaa horreeyey mid toona doorasho kumaydaan iman oo waa la dima magacaabay maxaa isbedelay horta cabdishiidow xisbigu wuxuu leeyahay xeer hoosaad iyo waxa weye xeer waxa weeyaan xeer hoosaadka garabka dhalinyarada waxaa ka mid ah oo farqadihiisa ku jira farqada 13aad in haddii ay banaanaato 2 shir inta u dhaxaysa xubinta gudoomiyuhu tusaale ahaan ama gudoomiyuhu casilo amba xilka laga qaado amba dee geeri ku timaado inuu gudoomiyuhu magacaabayo marka aniga dee gudoomiyihii ugu horreeyey waqtigoodu waa ka dhamaaday wayna is casileen iscasilaadaas markaa waxay keenaysaa dee inta shir la gaadhayo inuu gudoomiyaha xisbigu oo dee isagu awood u leh inuu magacaabo inuu soo magacaabo markaa sababta aan ku nimidna saas isaga dhamana saasay ahayd kii ka horreeyaa wax way iscasilay marka shirarkeennii goormay qabsoomayaan shirkii garabka se saasaa xeerku horta xisbiga imika xeerarkii waxba laga bedelay waay xisbigu siyaasado fara badan buu qaatay oo dee waxyaabo badan oo xisbiga dib u habeyn lagu sameeyaa jirta ilaa iyo hadda ma diyaarsana in la qabto shirweynihii dhalinyartu marka waqtigiisa unbay de marka la gaadho unbay nusay waaya gudoomiye markii lagu magacaabay waxaa soo baxayey warar dadku soo sheegayeen oo cabdirashiid cabdi jaamac in uu ka soo shaqeeyey systemka Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya oo Muqdisho u joogay ayay wararku sheegayeen arrintaasi adigu sideed u aragtay see eedeynta lagu eedeynayay inaad Soomaaliya markii hore ka soo shaqeynaysay maxay iska difaacaysaa horta waa su'aal muhiim oo dee weli intaan siyaasadda Soomaaliland ku jiray lama weydiin cabdirashiidow aniga markii la magacaabay intaan la magacaabin aan xisbiga xubin baan ka ahaa golaha dhaxan ku jiray gudoomiye garabka dhalinyaradana waxaan soo ahaa gobolka awdal baan ka soo ahaan jiray marka waa la soo dalacsiyay aniga horta saasay ku timi systemka oo nin dee dusha ka yimid ma ahayn talabaad muqdisho anigu nolosheeda ma arkin hadda nin magaalada tegey ee muqdisho dhex galay oo joogay maan ahayn hal maroon nolosheeda aan mar transit ku ahaa jirtay dadku markii la magacaabay rag badan oo amba xisbiga mucaarada ku noqdaan amba si kale ah jiraane waxaa jiray soo dhigay sawirro fara badan oo anu kula jiro rag markaa madax ka ahaa Soomaaliya anu markii hore waxaan jiray nin arrimaha bulshada ka shaqeeya hay'adan la soo shaqeyn jiray meelo fara badan baan soo maray caalamka dad fara badan baan ku kulanay marka anu nin siyaasad ku jiray ma ahayn nin system dawladeed u shaqeynaya ma ahayn ama Soomaaliland ha noqoto ama meel kale ha noqoto dadka faraha badan leh xasuus qor iyo qofka markaad isla fadhiisataan waxa way sawir baad galaysaa dadkan horaan isku naqaanay horaan isku imikana waan isnaqaanaa oo de shakhsiyadda barashada iyo wanaag qofka naga dhaxeeyay ani nationality haado friendshipka iyo wanaag iyo saaxiibtinimo walaalnimada naga dhaxaysa meel way noo taala waxa lagu kala duwan waa siyaasadda marka siyaasadda timaado ma de qofkii kala duwantiin dadkii aan walaal isnaqaanay aan asxaab tahayn ee de sawiradan ku wada jirnay ayaa markii la magacaabay dadkii soo faqeen oo de faraha bulshada soo dhigeen mid kalena rashiido waxa jirta amba siyaasad ku jir amba ha ku jirin dad waxa jira
qofka ku shaambadeeya marka horeba haddaad runta ka hadasho qaran dumis tusaale ahaan baan ku siinaya iminka tv-gan universal doodo wuxuu qabtaa dee arrimaha bulshada wanaagsan dee qofkan wuxuu ka sheekeynayo dooda ka qayb galay universal ma maamulo qof walba aaraha gaaruu la imanaya meesha idinku barnaamijkii baad diyaarinaysaan barnaamijkana dee diversitygiina dadku kala duwanaadaan buu dee ku fiican yahay oo dee ku qurux badnaanaya universal t v waxaa laga yaabaa dad inay ku dhaliilayaan in barnaamijyadan aada soo diyaariseen cid gaara dabada ka riixayso marka wuxuun bay la mid tahay tayadanna hor qofkani horteedna dee siyaasaddan ku jirna asxaab buu lahaa dad buu dee ay is yaqaaneen wada joogi jireen qofkan markuu system ku jiro wuxuu qabtay amba dee wuxuu galo in lagu dhalilaa fiican madaxweynuhu imaaraat xajka wuxuu kula kulmay wasiirada soomaaliya kula kulmay sawir bay wada galeen iyagoo xajkii wada jooga yaani madaxweynaha imika kuma dhalin karo kuma oran karo madaxweynuhu sawiruu la galay ragga soomaaliya dee wasiirada soomaaliya nairobi wasiirka arrimaha gudaha iyo rag musharaxiinka ah soomaaliya isku arkeen kuma dhaliili karno ma oran karno dee sawir bay wada galeen sawir waa la wada gali karaa imika kula joogaan gari karaa wala laakiin meesha waxa taala qofkani muxuu aad ku dhaliilaysaa kale oo sawir ahayn yaa yaala marka wuxuun bay la mid tahay cabdishidow dooda universal qabanaysa dadku sida kale u arkayaan dadka qaar waliba iyo dee taydii isku mid weey marka saas uu walaal waa gudoomiye hadda arrimaha siyaasadeed baa ka taagan Soomaaliland oo waliba ugu horeeyaan dhinaca doorashooyinka iyo furista ururada siyaasadda gudoomiyaha xisbiga wadani iyo musharax xisbiga wadani aan idhaahdo iyo waliba madaxweynuhuna way wada kulmeen xisbigii kulmiyana xisbigii wadanina kamid baa tahay maxay ka wada hadleen horta dee labadan waa laba oday oo waxa weeye nina dalkan hogaamiyo nina dalkan ka rabo inuu hogaamiyo waxay ka wada hadleen kulay wax qaranka iyo dalka u wanaagsan bay ka wada hadleen muhiimaduna waxa weeye doorashooyinku inuu waqtigeeda ku dhacaan anagu xisbi ahaan mabaadi'da xisbigayga waxaa ka mid ah in doorashada waqtigeeda lagu hasteeyo waad ogeed in international community guys inoo yimaadeen waxyaabihii aanu kala hadalnay iyaguna ay dowladda kala hadleen waxaa ka mid ahayd in doorashooyinka waqtigooda lagu ilaaliyo doorashooyinka waa laba xeer baa imika jira xeer number 14 2011 iyo xeer number 19 2020 oo labaduba sheegay doorashooyinka ka hadlaya xeerka doorashooyinka imika diyaarsan waa xeerkii doorashada madaxtooyada xeerka ururada furista ururada siyaasadda oo anagu cuqdadna kama qabno mana diidin in la furo laakiin ilaa imika xeerkii lagu maamuli lahaa ma yaala meesha xeer walaal number 14 2011 wuxuu dhigayaa in xisbiyadu asxaabta xisbiyada qaranku ay ka soo baxayaan urur siyaasadeedada ku tartama golayaasha deegaanka doorashadii deegaankan imika sanadba ma gaadhin muddo 11 bilood ka soo wareegtay xeerkan number 11 ee dowladda iyo xisbigaygu ay for area waxa xeerkii u samaysnaa ee lagu gal lahaa meesha ma yaalo marka imika waxa kaliya ta laga hadli karaa waxa weeye doorashada madaxtooyada oo de muddo imika 8 bilood ku dhawaad ay nooga dhiman tahay in lagu galo doorashada marka de waxaan u aaminsanahay labadan oday ee dalkan ka taliya in arrimaha doorashooyinka dalka taagan ay isla jeexjeexeen waayay gudoomiye xisbiyada kale labada xisbiga kale xisbiga talada Soomaaliland iyo kulmiye iyo xisbiga kale mucaaradka u cidba iyo adiguba garab gudoomiyaasha garabyada dhalinyarada ma isu timaadeen oo mar ma ka wada hadasheen arrimaha dhalinyarada iyo horumarkooda horta xisbiga wadani wuxuu jiraa muddo 2012 markuu noqday urur siyaasadeed bishii 12 2010 iyo urur siyaasadeed sax noqday waxa ka soo wareegtay 10 sano xisbiga wadani 10 sano ayuu joogaa oo de urur yahay qaran iyo xisbi qaran yahay 10 sano garabka dhalinyarada waxa soo maray 3 qof oo de qof walba uu joogay oo de wax soo qabtay waliba de 2015 yaa doorashadu dhacday de shirweynihii dhalinyaradu dhaceen xisbiga kulmiye 2002 baa la sameeyay ilaa iyo hadda oo 2022 20 sano jira 20 sano hal nin unba hortaagan gudoomiyaha garabka dhalinyarada kulmiye 2008 baa la doortay oo de shirkii burco xisbiga kulmiye lagu doortay ilaa iyo hadda waa gudoomiyaha garabka dhalinyarada kulmiye xisbiga wuxuu isagu wali gudoomiyaha garabka dhalinyarada male oo de xogayaha garabka dhalinyarada jira
oo dee uu bannaan yahay isagu laakiin xisbiga kulmiye nin baa xisbiga kulmiye guddoomiye ka ah 14 sano markaa dee xisbiga kulmiye dhalinyarta wuxuu qabanayo ka sheekeynayo isagiisu wuxuu ka bilaabay xisbigiisu ka bilaabay iyagoo soo kala baxaan malin marka guddoomiye maxaad soo kartaan markaa sababta guddoomiyahaas 14 sano uu joogo aan isbedelba lagaba samaynin maxay dila muuqataa ma doorashadoodii xeerarkiisii lagu dooranayay baan samaysnayn weli ma kala hadasheenoo ma tidhaahdeen warba nidaamkiinan siduu yahay horta cabdishiidow xisbiga kulmiye dee waa xisbi isagu si gaara u samaysan nidaamkiisa iyo hawshiisa leh anagu faragelin kuma hayno mana rabno inaan faragelino laakiin wuxuun bay ku tusaysaa markuu xisbigu dalkan ka rabo inuu hogaamiyo oo waxa weeye 12 sanana soo hogaaminaya oo leeyahay mar walba dhalinyartan wax u qabanana oo leeyahay dhalinyartan horumarka ka shaqeynana aynu ognahay sanduuqii dhalinyartu halku yahay aynu waxa soo dhamarka laga yimaado xisbiga kulmiye garabkiisa dhalinyarada uu haysto nin 14 sano haysto waxay ku tusaysaa halka ay dhalinyarnimadu ka taagan tahay xisbiga kulmiye cabdishiidow xeerarkeena iyo xeerarka charterka Afrikaba waxa ku qoran qofka dhalinyarta lagu sheegaya waa 18 jir iyo 35 jir inta u dhaxaysa intaas oo qof dhalinyar yahay qofku hadduu 35 dhaafo uu dhaafaya dhalinyarnimadii title dhalinyarana ma qaban karo xeer ahaan de waxa halka ka cad in kulmiyana xeerkii amba charterkii Afrika noqdo ama kii dalka u yaalaha noqday ay ku tunteen waxaana anagu aaminsanahay rag dhalinyar fara badan oo wanaagsan oo xisbiga taageersan oo ku xidhanay inay ka soo uga imanayaan sababta ugu weyn waxa weeye inaanay ku haysan dimuqraadiyadii ay filayeen iyo tartankii way guddoomiye gabagabadii barnaamijka ku jirnaa talada aad u soo jeedinayso bulshada Soomaaliland maxay tahay waxaan u soo jeedinayaa cabdishiidow horta ilaahay abaaraha inaga soo furto xilli adag baynu ku jirnaa waxaan leenahay ilaahay uu roobka noo soo daa abaaraha naga furo dhalinyarta anigu inta badan aan ku dhex jirana marka bulshada laga yimaado qaybta ugu fara badan boqolkiiba 70 wax ka badan lagu tilmaamo waxaan ugu soo jeedinayaa inay gacmaha is qabsadaan mar walbana waan sheegaa dalkani wuxuu ku badbaadayaa markaynu gacmaha is qabsano dalkani wuxuu ku badbaadayaa markaynu ka nimaadno caadifada iyo qabyaaladda iyo ninjeclaysiga tusaale ahaan qof baa cabdishiidow hadlaya oo ka hadlaya dalkan wanaagiisa wuxuu oranayaa dowladnimada iyo systemka aynu Soomaaliland lagu dhisay iyo systemkii aynu rejiimkii dowladdii hore ka cabananay waxaynu uga nimideen uga soo cararnay dowladda gaalmeena maxay ahayd waxay ahayd inaynu system ka wanaagsan oo ka dimuqraadisan oo ka xajalo badan inaynu helno marka haddii qofku tusaale ahaan uu systemkan u arko oo sida ay tahayna systemkii hore ee tagay waxaynu kaga fiicanahay ilaa imika aanu jirin qofku hadduu dhaliilaha keeno shaambadan qaandiimiska lagu saambadeynaya character assassination ama shakhsiyadiisa qofka laga dilaya waxaan ku boorinayaa dhalinyartu inay waxyaabaha soo dhan ka foojinaadaan inaanay caadifad helin qofka wanaagga u wada dalkan ee horumarka raba in gacmaha la isqabsado rabana inay taageeraan ay la socdaan aad iyo aad baad mahadsan tahay cabdirashiid cabdijaamac thank you daawadayaal intaasi ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeena milicsiga siyaasiga toddobaadkan waxaa igu martaa guddoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga macaaridka ee wadani cabdirashiid cabdijaamac barnaamijka intaa mid lamida ku kulmi doono waa anigoo cabdirashiid cabdiwaab xuseen iyo asxaabtii kala duwaneed ee stuudiyaha TV-ga Universal oo idin nabadgelyo